asalka Soomaalidu Afrikaan mise Carab Soomaalidu waa dad madow maariin ah islaam ah waji furan waxay ka mid yihiin qoomiyadaha u waaweyn oo iyada oo lagu jiro 2025 uu wali muran ka ogan yahay halka ay ka soo jeedaan israhan waxaan si shaki ku jirin Soomaalidu inay tahay ummad Afrikaan ah oo degta dhul weyn oo ku yaala geeska Afrika qoomiyadda Soomaalidu waxay si ballaaran ugu nooshahay Soomaaliya Djibouti gobolka Soomaali galbeed ee Ogaadeniya iyo dhul ballaaran oo ka tirsan waqooyi bari Kenya marka laga reebo xeebaha qallalan ee waqooyiga Soomaaliya ku yaala Soomaalidu waxay degaan dhul fadsan oo bannaan daaqsin ballaaran iyo toga qulqulaya leh waxay ku hadlaan af ka tirsan laanta kushitiga ee qoyska Afro-Asiatic horeyna loogu yiqiinay Hamito Semitic dhoodaan Allah u naxariiste waa kii ku gobiyay 7aadkii Ilaahi makhluuqo dhan iyo dunida meegaaray muslimnimo kolkuu soo dajay ee Muhammad soo saaray ee magaca aan sheegano iyo midabka noo yeelay oo uu madow nooga dhigay ama se maariinka ee uu mabda'a noogu xidhay muuminnimo khaasa walle inuusan meeqaam xille iyo meel xun noo dirin aan u soo noqdo Soomaalidu ma Carabba mise waa Afrikaan waxa ka horeysa jawaab su'aal kale oo ah Soomaalidu xaggay asal ahaan ka soo jeedaan taariikhyahanada qaarkood waxay sheegeen Soomaalidu inay qayb ka tahay ummadda isirkeedu ka soo jeedo Afro-Asiatic people tan macnaheedu waxa weeye isir isku jira oo ka kala yimi Aasiya Carab ama jasiiradda Carabta iyo geeska Afrika xaqiiqadu waxay u dhowdahay inaan asal ahaan ka soo kala jeedna laba isir oo midoobay kuwaas oo kala ah Carab iyo Afrikaan waana tan sababtan aynaan midna Carabnimada iyo Afrikaannimada si toos ah isugu tirin buugaag taariikheed oo aan arkay waxay sheegeen in Soomaalidu ka soo jeedo 4 qabiil oo la kala yiraahdo Salaaniyiin oo asalkoodu ka soo jeedo Masaarida waxayna ka kooban yihiin 7 qabiil oo waaweyn Xatra oo ah qabiil Carbeed oo ka soo jeeda Yemen Jaalu oo ka soo jeeda Tanzania Soomaalidu waxay u badan tahay inay yihiin reer Xaam waxayna ka sii galaan oo ka mid yihiin qoomiyadda la yiraahdo Kushitik oo ay ku abtirsadaan dadka degan Ethiopia Kenya iyo Suudaan aasaaska bulshada Soomaaliyeed waa qabiilo iyo reer isku xiran kuna dhisan dhiig iyo dhalasho kuwaas oo ka soo farcamay hal awow oo la wada sheegto qof kasta oo Soomaali ah waxa ku waajibay inuu qayb ka noqdo arrimaha bulshada ee reerka uu ka dhashay hogaaminta reeraha Soomaaliyeed waa rag waana la kala dhaxlaa marka aynu ka hadlayno isu aqoonsiga Soomaalida ee Carabnimo waxa uu ku dhamaanayaa dalka Yemen xiriirka Soomaalida iyo Carabtuna Yemen ayuu ka soo unkumay arrinkaasi wuxuu dib ugu laabanayaa waayihii hore ee dhaqanka iyo taariikhda Yemen iyo Soomaalida kuwaas oo si qoto dheer isu dhaxqaaday waxay Soomaalida iyo Yemeniyiinta ka dhaxeeyay taariikh dheer oo ganacsi iyo isu gudub bulsho ah Soomaalidu waxay degeen magaalada Cadan ganacsatada Carab ee Yemeniyiinta ahayna waxay ka ganacsan jireen magaalooyin xeebeedka Soomaaliya ku yaala sida Muqdisho iyo Berbera isdhaxgalkaasi wuxuu sahay u noqday in la wadaaga dhaqamo caadooyin iyo xataa afka Soomaali badan ayaana ku abtirsata Yemen af Soomaaliga laftigiisu waxa ka buuxa kumanaan ereyo ka yimi Carabiga Yemen lagaga hadlo sidoo kale laba kamida beelaha ugu tunka weyn uguna saameynta badan dalka Soomaaliya Daarood iyo Isaaq ayaa sheegtay in asalahaan ka soo jeedaan Carabta Yemen ku nool Soomaalidu guud ahaan waa reer guuraa xoolo dhaqata tartanka adag ee kheyraadka dhifta awgi waxay noqdeen kuwa si weyn u dirira marar badanna waxa ka dhaxulca colaado iyo dagaal qabiilo iyo ceelal ku salaysan islaamku waxa dhulka Soomaalida soo gaaray xilil dhalashadiisii hore ku beegnayd markii Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo Allah weyn dushiisa ha yeelay saxaabadiisu u hijroodeen dhulka Xabashida ee Boqor Najaashi magaalada Zaylac waxa ku yaala masjid lagu magacaabo Qiblatayn oo taariikh ahaan ku beegan qarnigii 7aad isla markaana loo aqoonsan yahay mid ka mid ah masaajidda ugu daada weyn Afrika Soomaalidu waxay noqdeen dadkii ugu horeeyay aan Carab ahayn ee si rasmi ah u qaatay islaamka qarnigii dambe magaalooyinka qadiimiga ah sida Muqdisho Zaylac Baraawe iyo Berbera waxay noqdeen magaalooyin islaamka rug iyo saldhig u ah ganacsiyana ku caan baxay Muqdisho waxa mar lagu naanaysi jiray magaalada islaamka waxayna gacanta ku haysay ganacsiga dahabka ee bariga Afrika isku soo wada xooriyo inkasta oo qaar ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed ay sheegtaan asal Carbeed sida Daaroodka iyo Isaaqa cilmi ahaan arrintaasi ma sugna waxayna ilaha cilmiga sugayaan in Soomaalidu tahay qoomiyad Afrikaan ah oo ka tirsan kooxda Kushitiga lehna af dhaqan hidde iyada oo gaar ah oo Afrikaannimo waxaan ahay Muxiidiin Cabdi oo maanta dhul ahaan
dhaqaale ahaan iyo siyaasad bulsho ahaanba ku xiran dowladaha caalamka hogaamiya ayaguna doonayaan inay danahooda ka fushadaan gobolkan ayaynu maanta isweydiinaynaa dadyowgii ama qoomiyadihii qarniyo badan ku noolaa gobolkan ay ku soo dhaxmareen dagaalada joogtada ah ee ku salaysnaa diimaha dhulballaadhsiga daaqsimaha beeraha awoodmatooxsiga iyo arrimo kale goorma ayay iyagu dhulkani soo degeen gaar ahaanna goorma ayay Soomaalidu soo degtay geeska Afrika haddii aad nagu cusub tahay magacaygu waa Muxyidiin Cabdi waxaad igala socotaan juqraafi ee fadlan ku soo biir madalaha juqraafi ee YouTube Facebook iyo TikTok soo dhawow mar kale taariikhdii hore ee Soomaalida ee ka horreysay taariikhda qoran prehistory waxay Soomaalidu kala mid yihiin bini'aadamka kale waana taariikh inta badan lagu ogaado baaritaan lagu sameeyo xagga aaladihii ay dadkii hore adeegsan jireen iyo baaritaanna lagu sameeyo lafa hore oo laga helo dhulka oo la qiyaasay xilligii dadkii hore halkaas ku noolaayeen waxaana baaritaanka noocaas lagu qiyaasaa xilligii meeshaas lagu noolaan jiray iyo qaabkii dadka halkaas degan ay u noolaayeen cilmigaasoo loo yaqaano archaeology baaritaanna lagu sameeyey taariikhdii hore waxay muujinayaan in geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalidu degtay ay yihiin meelihii ugu horreeyay ee bini'aadamku deganaayeen kana soo farcameen taariikhyahanno ayaa aaminsan in taariikhdii hore ee Soomaalida oo la ogaado ay dan u tahay bini'aadamka oo dhan waayo waa dad aad u daaweyn gaar ahaanna baaritaanna lagu sameeyey taariikhdii hore waxay muujiyeen in Soomaalidu ay yihiin dadka adduunka ugu faca weyn ee ku dhaqnaa geeska Afrika taasoo sharaf u ah inay yihiin dad taariikh fac weyn leh oo aanay ahayn dad shalay soo degay geeska Afrika laakiin nasiib darro taariikhdaasi waa laga qariyay Soomaalida sida laaska daawadu waa kitaabka Alle iyo axaadiista suubanuhu inoo sheegeen waa tii daad lagu qarqiyey qoomkii alladiidyada ahaa ee reer Nuux waa tii dadkii iyo wixii koonka joogay oo dhani halaagsameen sida uu Alle inoo sheegay waxa badbaaday oo kaliya Nabi Nuux iyo intii noola ahayd ee doonta la saareed Carabta Israa'iiliyiinta Afrikaanka Turkida Roomaaniyiinta Aasiyiinta iyo qoomiyadaha kale ee ku dhaqan dunida maanta waxa ay ka soo alkumeen ilma Nabi Nuux Kushitig oo inagu ka mid nahayna waxa ay sheegeen inay ka soo farcameen kuna abtirsamaan Xaam bin Nuux sidaa darteed waxaa la rumaysan yahay in Xamaatigu ama Kushitigu ka soo farcameen Xaam bin Nuux dhulkeenna asalkii ahina ahaa galbeedka Aasiya kadibna aynu kala firirnay kalena aadnay dhulal kala duwan oo ku yaala qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo waqooyiga Afrika sinta webiga Niil ee Masar ku yaala dad badan oo cilmi baarayaalihii waxay u arkaan in dadka ku hadla Afro-Aasiyaatiga oo keena Soomaaligu ku jiro ay ka soo farcameen galbeedka Aasiya kana yimaadeen halkaa 70,000 oo sano ka hor dadka sida aaminsan waxaa si gaar ah ugu badan culimada ku takhasusay cilmiga afafka Semeetiga iyo taariikhda Masaaridii hore waxaa kale oo taageero aragtidani culimada archaeology-ga ee qaba malaawaalka ah in afaf waaweyn ay isku ballaadhiyeen dunida iyagoo wata iskuna hirgeliyey farsamadii beeraha ee kacaankii Neolithic halkaas oo la oran karo in beerashada casriga ihi markii ugu horreysay ay ka soo hanaqaaday galbeedka Aasiya dadkii ka soo bartayna ay gaarsiiyeen dunida inteeda kale qaar kale oo afyaqaano iyo taariikhyaqaanihi waxay qabaan in asalka dhuleed ee dadka ku hadla Afro-Aasiyaatiga oo Soomaaliduna ku jirto oo ahaa Afrika gaar ahaanna waqooyiga Afrika halkaasna ay uga soo guureen geeska Afrika sababta ay u qabaan aragtidani waxa weeye in halkaasi ay tahay xarun juqraafiyadeed ee afafkaas maanta ka jira iyo in halkaas ay ka muuqato kala duwanaanshihii ugu badnaa ee afafka Afro-Aasiyaatiga taasoo inta badan loo arko calaamad muujinaysa dhulkii hooyada ee luuqadahaas iyo dadyooga ku hadla afyahanno iyo hidda ururyaal kale oo uu hormuud u yahay Igor Diakonoff waxay qabaan in asalka dhuleed ee dadka ku hadla Afro-Aasiyaatiga laga raadiyo saxaraha bari gaar ahaanna hareeraha koonfureed ee lamadegaanka halkaasna ay ka soo guureen afyahan kale oo la yiraahdo Lionel Bender waxa uu soo jeediyey in dadkaasi ka soo guureen meel u dhow magaalada Khartoum ee Suudaan halkaa oo ay ku kulmaan webiyada Niilka buluuga ah iyo Niilka cad qoomiyadaha la isku yiraahdo Kushitig oo ay ka mid yihiin Soomaalida Oromada Beejaha Saaxada Canfarta Masayda Xabashida waxaa loo arkaa inay asal ahaan ka soo farcameen dad ku hadli jiray Afro-Aasiyatig oo ka yimid bariga dhexe yimidna buulaleyda Itoobiya 70,000 oo sano ka hor cilmi baarisyada DNA-ga casriga ah
waxay muujiyeen in dadkii hore ee Homo sapiensku ay ka soo guureen bariga dhexe una soo guureen bariga Afrika gaar ahaan Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ilaa 60,000-70,000 oo sano ka hor. Sidaa darteed, dadka Kushitiga oo loo nisbeeyay Xamaatiga taariikhda Islaamka waxay ku xidhan yihiin dhaqdhaqaaqyadaas hore oo isku darka dadka ka yimid bariga dhexe kuna nool Afrika hore aan qornayn prehistory. Marka laga yimaado aadamiga kuwooda ilbaxnimada keenay, waxa ugu horeeyay boqortooyadii ay iska dhaxleen qoysaskii faraacinada ee masaaridii hore. boqortooyadaas oo jirtay 3,000 oo sano waxaa loo qaybiyaa 3 dawladood oo kala ahaa. dawladii hore oo jirtay 3,000 ilaa 2,800 Nabi Ciise horti, taa oo markay bilaabatay hadda laga joogo 5,000 oo sano. dawladii dhexe oo jirtay 2,800 ilaa 1,725 Ciise horti, iyo tii u dambeysay oo jirtay 1,725 Ciise horti ilaa ay soo baxday xadaaradii Griigu. taariikhdu waxay xustaa in xiriir xoog leh u dhaxeeyay Soomaalida iyo faraacinadii hore ee Masar. boqorkii ugu horeeyay ee safaradiisu yimaadaan Soomaaliya waxaa lagu tilmaami jiray in la oran jiray Khufu 2,589 ilaa 2,566 BC. taariikhdu waxay xustaa wiil uu dhalay Khufu in dooni uu watay uu la socday nin Soomaali ah oo magaciisu ahaa hortiisa, waxaana loo maleynayay in ninka Soomaaligiihi uu ahaa dalyaqaan tusayay Soomaaliya. faraacinadii hore qaar ka mid ah waxay Soomaaliya ugu imaan jireen ganacsi, qaarna waxay u imaan jireen bililiqo. waxaana la xusaa in dagaaladii ugu horeeyay ee adduunka ka dhacay ay ahaayeen dagaal dhex maray Soomaali iyo faraacino bililiqadoon ahaa oo Soomaalida la dagaalantay. faraacinadii dambe aad ayay xiriir ula soo sameeyeen Soomaaliya, gaar ahaan xiriir ganacsi. waxa ugu caansanaa boqoradii Hatshepsut 1508 ilaa 1458 BC oo xiriir weyn la soo yeelatay Soomaaliya. waxaa taariikhdaasi xoog weyn ugu xusan isla markaana ay faraacinadu ku sawireen ahraamtooda in safarro waaweyn ay boqoradaasi u soo dirtay Soomaaliya. doonyihii ay soo dirtay oo lagu qiyaasay 6 doonyood markii ay soo gaareen Soomaaliya si weyn ayaa loo soo dhaweeyay. waa la marti sooray, waxaana doonyihii loogu raray shixnad qaali ah iyo hadiyado looga buuxiyay doonyihii. markii safarkaasi ka laabtay Soomaaliya oo uu gaaray Masar, waxay boqoradii tiri waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awowayaal. hadalkaas oo loo daliishado in xadaaradii ka aasaasantay dhulka masaaridii hore ay asal ahaan ka soo jeeday Soomaaliya. waxaa taariikhdu muujinaysaa in ilbaxnimadii hore ee masaaridu ay asal ahaan ka soo jeeday dhulka Geeska Afrika ee Soomaalidu degto, halkaas oo ay kala tageen ilbaxnimo iyo xadaarad. waa nasiib darro in taariikhdaas ka qarsoonto Soomaalida oo Soomaalidu ay yihiin dad taariikh dheer. buugga la yiraahdo Pharaohs, Felhas and Explorers oo la qoray 1892 oo ka warbixinayay safarkii ay boqoradii Hatshepsut ugu dirtay Soomaaliya, waxa uu qoray sidan: dhacdadaasi waxay ahayd in la sameeyay xayn maraakiib ah oo mari kara badda, waxaana loo diray dhulkii Buntil. dhulkaas oo Masbeero iyo Malatiid ku asteeyeen inuu yahay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya oo ku yaala dhanka bari ee xeebta Afrika oo xuduud la leh gacanka cadan. dhulkaas oo qani ku ahaa beeyada, fooxa, xabagta qaaliga ah, mayraxda, dahabka, foolmaroodiga iyo alwaax qaali ah. waa dhulka loogu yeero dhulkii qorfaha. waxaad igala socotaan madasha juqraafi.